Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan channelka Super Plus gaar ahaan barnaamijkiisa xasuusaha oo aan maanta idinkugu soo gudbin doono taariikh nololeedka madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Aadan Cabdulle Cismaan. madaxweyne Aadan Cabdulle Cismaan waxa uu 1908 ku dhashay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyadoo waxbarashadiisa aasaasiga ku dhameystay magaalada Muqdisho. Aadan Cabdulle waxa uu 1944 ku biiray naadiga dhalinyarada ee Soomaalida ee SYC isla markaana waxa uu hogaamiye ka noqday ururka farciisa Beledweyne. wuxuuna la shaqayn jiray Cabdullaahi Ciise Maxamuud kaasoo madaxtinimada xisbiga la wareegay 1947. Dhammaadkii xukunkii gumeysiga ee 1 Luulyo 1960 Soomaaliya ayaa yeelatay madaxweynihii ugu horeeyay waxaana Aadan Cabdulle Cismaan. waxa uu ahaa mid ay shakhsiyadiisu fiican tahay, fikradiisu wanaagsan tahay, go'aan qaadashana leh. 1967 Aadan Cabdulle Cismaan waxaa lagu xasuustaa in xilka madaxtinimo si nabadgelyo ah ugu wareejiyay madaxweynihii waqtigaas ee Cabdirashiid Cali Sharmaake taasoo naadir ka ahayd qaaradda Afrika oo la daalaa-dhacaysay afgembi militari, xeel jaceyl iyo kalitalinnimo. waxaana Aadan Cabdulle Cismaan lagu tilmaamaa madaxweynihii ugu horeeyay ee qaaradda Afrika kaasoo xilka si nabadgelyo ah ku wareejiya. kadib burburkii xukuumaddii dowladdii gacanka waxa uu xubin ka ahaa dhaqdhaqaaqii dib u heshiisiinta Soomaalida ee Jabuuti 1991 waxaana ku weheliyey Maxamed Ibraahim Cigaal. gesiga dhulkiisa Allah u naxariistay 8 Juun 2007 ummadda Soomaaliyeed ayaa mar qora weysay madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Cismaan kaasoo ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxaana aas qaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho 11 Juun 2007 iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii waqtigaas ee dalka Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Cali Maxamed Geedi. waxaana loogu magac daray madaarka caalamiga ah ee diyaaradaha magaalada Muqdisho. guud ahaan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa asxaabay xusuustii madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Cismaan. fadlan haddii aad halkan ku cusub tahay subscribe saar kambalelkan riix si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya. mahadsanid.